qandho umuleed waa maxay qandho umuleed qandho umuleedku waa infekshan ku dhaca hooyada marka ay dhasho kadib waana cudurka saddexaad ay u dhintaan hooyooyinka ku nool daafaha caalamka sababo la xiriiro dhiigbaxa dhalmada kadib iyo dhiciska hay'adda caafimaadka adduunka waxa ay ku qiyaasay 50,000 oo hooyo 15% waxa ay si sanadlaha ugu dhintaan qandho umuleed qandho umuleedku waxa aan ku qeexi karnaa infekshanka ku dhaca xubinta taranka hooyada marka ay dhasho kadib waxaana sababa bakteeriya ilma aragta ah waxa uu caan ku yahay qandho aad u daran cabir ahaanna waxa ay gaari kartaa 40 digrii halka ruuxa caadiga heerkulkiisa laga rabo inuu noqdo 35.5 ilaa 37 centigrade waa maxay calaamadaha lagu garto qandho umuleedka xumad daran dhawr xanuun hooyada oo dareenta qoyaan aad u badan madax xanuun hooyada oo lagu arko jarays iyo hooyada oo mateed xumo ku dhacdo waxa lagu arki karaa hooyada oo dareenta wadna garaac aad u badan hooyada ayaa halis ugu jirto qandho umuleedka hooyada ku dheeraata foosha waxa ay halis ugu jirtaa marka ay dhasho kadib in ay ku dhaco qandho umuleed hooyada dhiig la'aanta ku dhacdo xilliga uurka waxa ay halis ugu jirtaa qandho umuleed sidoo kale hooyada aan laga daaweyn infekshanka xilliga ay uurka leedahay waxa ay halis ugu jirtaa in ay ku dhacdo qandho umuleed dhalmada kadib hooyada da ahaan ka yar 18 sano waxa ay halis ugu jirtaa qandho umuleed haddii aad ku aragto hooyada marka ay dhasho kadib qandho aad u daran wadna garaac iyo calaamadaha aan kor ku soo xusnay fadlan sida ugu dhaqsiyaha badan u gee goobaha lagu daryeelo caafimaadka mahadsanid